sida aad la wada socotiin ba musharaxiinta isu soo taagay xilka gudoomiyaha guud ee midowga dhalinyarada qowmiyadda sagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmadiisa Jowhar waxa ay gaarayeen ilaa iyo 4 musharax halkaasi oo ay ku kala ahaayeen musharax gudoomiye Xuseen Culuw Magaale iyo musharax gudoomiye Maxamed Nuuni ama Nuur Oyow iyo sidoo kale musharax gudoomiye Ibrahim Macallin Xasan iyo sidoo kale musharax gudoomiye Ahmed Xaafo ama Ahmed Xiifo sida u taqaanaan musharaxiinta sida waxa ay isu soo taageen inay qabtaan xilka guud ee gudoomiyaha guud ee midowga dhalinyarada qowmiyadda sagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmadiisa Jowhar ayay isu soo taageen hase ahaatee markii ay doorashada soo dhawaatay waxa tanaasulay oo xilkii musharaxnimada iska casilay ama ka tanaasulay aan yiraahdee laba musharax oo kala ahaa musharax gudoomiye Xuseen Culuw Magaale iyo musharax gudoomiye Maxamed Nuur Oyow oo ayagu sheegay inay u tanaasulayaan walaalahooda Ibrahim Macallin Xasan iyo musharax Ahmed Xiifo oo ayaga ay u qalmaan in ay u tartamaan jagada gudoomiyenimo ee gobolka Shabeellaha Dhexe intaas kadib guddiga qabanqaabada doorashada dhalinyarada guud ama dhalinyarada xilka gudoomiyaha iyo ku-xigeenka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qoondeeyay qorsheeyay sida ay doorashada u dhici lahayd waxa si cod u soo xaadiray 92 cod oo loogu talagalay in ay doorashada ka qayb galaan ama doorashada ay codkooda ka dhiibtaan qofka gudoomiyaha noqon doona iyo kan gudoomiye ku-xigeenka noqon doona musharaxiinta Ibrahim Macallin Xasan ayaa khudbad ka jeediyay ama musharax gudoomiye Ibrahim Macallin Xasan ayaa khudbad ka jeediyay halka hoolka doorashada ay ka dhaceysay iyo sidoo kale musharax gudoomiye Ahmed Xiifo ayaa asagana khudbad aad u weyn waqti badan qaadatay meesha ka jeediyay khudbooyinkaasi oo kala dhacayay waxyaabaha ay qaban doonaan musharaxiinta xilka gudoomiye marka ay qabtaan kadib iyo sida ay ula tacaamuli doonaan ulana dhaqmi doonaan maamulka meesha ka jira dhalinyarada meesha ka jirta iyo sida ay u mideyn lahaayeen dhalinyarada boqortooyada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku nool siyaasad la mid codadkii guddiga doorashada ay ansixiyeen oo ahaa 92 cod waxa qasaaray markii doorashada ay bilaabatay oo doorashadiina la isu imaaday waxa qasaaray 5 cod ayaa meesha ka qasaaray ama ka gubatay sidoo kale Ahmed musharax gudoomiye dhalinyarada boqortooyada sagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe Ahmed Xiifo ayaa helay 30 cod halka ay u codeeyeen 30 xubin ama 30 kamid ahayd ergadii meesha ka codeynaysi sidoo kale musharax gudoomiye xilka gudoomiyenimada midowga dhalinyarada qowmiyadda sagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe Ibrahim Macallin Xasan ayaa asiguna helay 57 cod halkaasi oo uu kaga guuleystay dhigiisii la tartamayay Ahmed Xiifo oo 30 cod helay xilka iyo mas'uuliyadda guud iyo muxuu ahaa guusha ayaa meesha waxay ku raacday musharax gudoomiye Ibrahim Macallin Xasan asagoo walaalkiisa Ahmed Xiifo u sacaba qaaday ugana hambalyeeyay sida ay tahay ay kaga go'antaa in ay la shaqeeyo dhalinyarada qowmiyadda sagaal sida ay caado u ahaydba gudoomiyaha guud ee ururka dhalinyarada qowmiyadda sagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha cusub ayaa loo dhaariyay una baxay miiska dhaarinta Macallin Isaaq Nuuni sida u taqaanaan ayaa dhaar mariyay si uu ugu shaqeeyo dadkiisa si hufnaan daacad sinaan cadaaladna ay la jirto intaas in kadib ciidamada ammaanka oo meeshaasi ka sugayay amniga ee boqortooyada reer Eylo oo dhowr meelood ka kala yimid oo ay hogaaminayeen saraakiisha ama ay hogaaminayeen ciidamada qaaska u tababaran ee boqortooyada meesha imaaday Ganela nahaye, jawa-jawan doku kalaye, ganela nahaye. Amiria joai, gover wakasa. Sudi karir ke kori maaye, garato hai na to bata.
gabagaban goobku galaaye gaane ilaanaye gabagaban goobku galaaye gaane ilaanaye